Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawada kusoo dhawow channelka Aqoon Official. Maanta waxaan xalin doonaa imtixaanka dowladda maadada taariikhda baartigiisa labaad. Su'aalaha taariikhtiga ayaan ka jawaabi doonaa insha Allah. Su-aasha koowaad haddaan ku hormarno waxay u dhacaysaa sida tan: sheeg laba ka mid ah sababihii gudaha ee ka qayb qaadatay tabardaridii dowladdii Cusmaaniyiinta. Jawaabtu marka waxay noqon doontaa ama aan ka jawaabnay su-aashaas. Qodobka koowaad: nidaamka xukunka oo noqday keligii talisnimo, kaasoo awoodda oo dhan gacanta u geliyay hal qof oo ah suldaanka oo aanay awooddiisu xadidnayn. Qodobka labaad: jahwareer dhaqaale iyo mid bulsheed, musuqmaasuq maaliyadeed ayaa jiray, laaluushkana wuu sii faafay, miisaaniyaddu kuma filnayn, suldaankuna dan kama lahayn arrimaha bulshada. Waxaan u gudbaynaa su-aasha ku xigta ee labaad ee maadada history-ga ama taariikhda. Su-aashiisa labaad: sheeg laba ka mid ah muhiimadda gobolka Kashmir u leeyahay Bakistan. Jawaabta marka waxay noqon doontaa waa in laga helo dad saldhig difaac u ah waqooyiga Bakistan. Qodobka labaad: waxa ay xoog dadeed oo Muslimiin ah u tahay gobolka Punjab. Waa su-aasha labaad jawaabteeda. Waxaan u gudbaynaa su-aasha ku xigta ee saddexaad ayaan u gudbaynaa. Madaxweyne Aadan Cadde waxa uu ku faanay in uu wareejinayo hoggaanka dowlad aan qofna fikir dartiis ugu xirnayn. Maxaan ka fahmi karnaa hadalkaas? Su-aashaas jawaabteeda oo saddexaad waxay noqonaysaa sida tan ayay u dhacaysaa marka. Su-aasha jawaabteeda: qofna waa in lagu ixtiraamo fikradiisa, sidoo kale laguna tixgeliyo. Su-aasha ku xigta ee haddaan u gudubno ee afraad: sheeg laba ka mid ah guulihii xukuumaddii militariga ee Soomaaliya 7 sano ee ugu horeysay. Haddaba jawaabta su-aasha afraad waxay noqonaysaa fulinta mashaariic dhaqaale dhinacyada waxbarashada, beeraha iyo xoolaha. Dhinaca arrimaha bulshada, kacaanku waxa uu dadaal dheer ku bixiyay adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada. Waa su-aasha ku xigta u gudbaynaa ee shanaad. Xukun waa kii Eebbe, ma aha kiina dhalanteedka ah. Maxaa loola jeedaa hadalkaas? Qofka waa in uu ku dhaqmaa xukunka Eebbe, raallina uu ku noqdaa si kasta uu yahay. Waa inuu ku qancaa xukunka Eebbe. Waxaan u gudbaynaa su-aasha ku xigta ee lixaad. sheeg laba ka mid ah sababihii dhaliyay dagaalkii labaad ee adduunka. Waxaa noqonaa marka qodobka koowaad isballaarinta Japan. Nambarka labaad Hitler iyo xisbiga Nazi-ga ayay noqonaysaa. Waxaan u gudbaynaa su-aasha ku xigta ee toddobaad. sheeg laba ka mid ah howlaha Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. Su-aasha jawaabteeda marka waxay noqonaysaa toddobaad sida tan ayay noqonaysaa. Haddii aan fiirino tixgelinta iyo ansixinta miisaaniyadda Qaramada Midoobay, go-aanka gaarista arrimaha muhiimka ah, tusaale waddan iyo waxyaabaha isku qabtaan oo kale, go-aanka gaaristeeda. Su-aasha ku xigta ee sideedaad. sheeg laba ka mid ah ujeedooyinka loo aasaasay Jaamacadda Carabta. Haddaan fiirino marka su-aasha sideedaad jawaabteeda: xalinta khilaafaadka ka dhex dhasha xubnaheeda ama mid u dhexeeya xubnaheeda iyo dhinacyo kale, isku dubbaridka aragtida siyaasadeed ee dowladaha xubnaha ka ah jaamacadda ama ururka Jaamacadda Carabta. Su-aasha ku xigta haddaan fiirino sagaalaad. sheeg laba ka mid ah caqabadaha dibadda ee soo wajahay ururka Midowga Afrika. Haddaan wax ka sheegno marka waxaa ka mid ah ka hortagidda raadkii gumaysiga iyo midab kala sooca. Nambarka ku xiga ama qodobka labaad dardargelinta ka qaybgalka Afrika iyo ururada caalamiga ah. Su-aasha ugu dambeysa ku xigta 10aad. sheeg mid ka mid ah ujeedooyinka sharciga. Waxay noqonaysaa marka mid ka mid ah la weydiiyay ujeedooyinka sharciga. Waxay u dhacaysaa marka jawaabteeda guulka gaarista amniga dadka,
qodob waaye. Qodobka kale ku xijinayno waa xaqiijinta cadaaladda dadka dhexdooda. waa 10 su'aalood taariikhda. aad u mahadsantihiin. haddaad channelka cusub tahay subscribe saar, asxaabadaada u sii share garee. mahadsanidin. waxaan rajeynayaa in imtixaanka aad ku guuleysan doontaan dhammaantiinaba insha Allah.